وين برنامجkeena habeenimo waxa kamida madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Iran ay ku dhowdahay in ay samaysato nuclearki ugu horeeyay waxaynu barnaamijka idinku haynaa xiisada bariga dhexe oo meel adag marayso Trump oo sheegay inay ku dhow yihiin inay la wada wareegaan Hormuz iyo khatarta awoodda Iran oo sii badanayso qodobada sidoo kale barnaamijkan idinku haynayana waxa kamida dawladda Yemen ee ay taageerto Sacuudiga ayaa isku dayda maanta in ay hor istaagto wafdigii Xuutiyiinta uga qayb galay aaska hogaamiyihii dalka Iran Ali Khamenei ugu dambeyn wafdigii Xuutiga way soo degeen laakiin maxaa dhacay sheeko yaab leh ayaan idinkaga hayaa qodobada sidoo kale barnaamijka aynu ku eegi doonayna waxa kamida goobta ay ku soo degeen wafdiga Xuutiyiinta iyo sida ay u jabiyeen isku daygii Sacuudiga iyo dawladda Yemen ee Sacuudiga ay taageerto fadhigeeduna uu yahay cadan oo markaasi wafdigii Xuutiga is hortaagay laakiin meel aan Sanaa ahayn ay ku degeen xagee ku degeen halkay ku dambeysay isku daygii Sacuudiga ay isku dayeen iyo dawladda Yemen inay hortaagaan Xuutiga qodobkaas waxaad sidoo kale ku maqli doontaa wasiirka difaaca dalka Yemen gaar ahaan Xuutiga ayaa sheegay in dulqaadkii uu ka dhamaaday haddana dagaal cusub uu bilowday iyaga Sacuudiga qodobka ugu dambeeyay waxaan idinku hayaa qiimaha shidaalka dunida ayaa kor u kacay 4% waxaana taa ay sababtay walaac ay ka qabaan maraakiibta adduunka maritaanka Hormuz iyo xaaladda oo si adkaanayso qodobada iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena habeen waa Mustafa Ali halkan waa Kow Somali Media madaxweyne Trump ayaa waxa maanta mar kale ka soo yeeray hadallo iskhilaafsan Trump waxa uu ka jawaabayay su'aal la weydiiyo oo ahayd in madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama uu cambaarayay Trump iyo kooxdiisa kuna cambaarayay heshiiska aadka u liita ay la galeen iyo qaabka ay u wajaheen nidaamka Tehran waxa Obama ku eedeeyay heshiiska iyaga ay la galeen inuu macno lahaa oo ka hor istaagay Iran inay samaysto nuclearka laakiin hadda Iran in la siiyo fursad Trump oo arinta ka jawaabay Fox News la hadlayo oo aan idin la wadaagi doono waxa uu yiri heshiiskii Obama wuxuu ahaa kii ugu liitay wuxuu ahaa mid aad u daran Iran waxay ku dhowdaa inay samaysto nuclear heshiiskaas wixii ka dambeeyay awoodeedu uu sii kordhayay hadii aanan diri lahayn Ali Khamenei Iran aan weerar lahayn Iran mar hore ay samaysan lahayd hadda waxay ku dhowdaa inay nuclear hesho qarka ay u saaran tahay inaga ayaa hortaagan ayuu leeyahay Trump waa kana ila dhageyso Trump oo ka hadlayo awoodda Iran ee samaysashada nuclearka oo uu ku tilmaamay mid aad u sii badanayso not terminated the agreement the Iran nuclear deal is called they would have had a weapon then had I not killed Khomeini who was a brilliant but mad general he was a crazy Soleimani I killed Soleimani. Soleimani was like one of the really bad people in this whole thing. Right. But he was good at what he did. He was a very brilliant general. Mr. President, I think the killing of Soleimani was one of the biggest things. I think we heard they're rebuilding. The B-2 bombers, I'll tell you, Ainsley, had I not attacked on the B-2 bombers, they would have a nuclear weapon. And right now, the Middle East in its current form would not exist. madaxweyne Trump hadii aanan dili lahayn Ali Khamenei oo anina aad u wanaagsan nin wanaagsan iyo waan dilay nin xun ahaa waa qof hal laba eray oo iskhilaafsan hal af u leeyahay ay ka soo wada baxayaan waxa yiri General Qasim Soleimani hadaanan dili lahayn oo general aad u xun qof aad u xun way buu leeyahay hadana waxa uu leeyahay wuxuu ahaa general ahaan nin wanaagsan nin aad wanaagsan buu ahaa wariyii waa adkaysan kari weynaysaa madaxweynahoodii oo leh Iran nuclearka samaysan rabtay hadda way u dhowdahay markaas ay weelada we had the rebuilding madaxweyne waxaan maqalnay in Iran dib u samaystay nuclearkeeda oo ka sii soconaya hadalkii sii wadanaya waxa uu leeyahay bariga dhexe ma jiri lahayn way baabi'i lahayd sidoo maanta u jiro uma jiri lahayn isku soo duub Iran waxa lagu waramayaa in awoodeedan samaysada nuclearka ay hadda gaartay heerkii ugu sareysay waxa jira warar tilmaamaya in Iran ugu yaraan hal bam oo nuclear ay samaysatay waxa sidoo kale jira warar kale oo tilmaamaya awoodda Iran samaysada nuclearka in ay hadda sii badanayso maalin walba madaxyada
nuclearka ay samaysan karayso ay badanayso waxaana cabsida sii badiyey markii ay Iran tageen khubaro reer Ruushka oo samaysada nuclearka aad u yaqaano laakiin ma jirto xaqiiqo cadeyn karto in Iran nuclear u gacanteeda ku jiro Iran maanta waxa ay ku dhawaaqday saakii hore ilaa ay xalay in Hormuz ay ka qiimo badan tahay 10 madax oo nuclear Mareykanka arinta ka jawaabaya waxa uu caawa Trump mar kale sheegay in ay la wareegayaan Hormuz oo iyagu gacanta ay ku haynayaan maamulkeeda hadda dagaalka ugu weyn ee bariga dhexe ka taagan Mareykan iyo Iran ay isku haystaan dalalka khaliijka loo duqeynayo waa yaa maamulaya Hormuz sidee loo maamulaya yaa xukumaya ma aha nuclear ma aha awood kale waxay u muuqataa taarajo badan inuu kala hayn Mareykan in Iran mar damba uu kala hadlo Iran ay u muuqato inay diyaar u ahayn inay ka hadasho wax nuclear lacag laga ma qaaday Hormuz waa laga qaadaya ayay xaaladu maraysaa waayahay waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka dawladda Yemen ayaa isku dayday inay is hortaagto wafdigii Xuutiga uga qayb galayay aaska hogaamiyihii Iran Ali Khamenei waxa loo diiday inay hawada soo galaan oo ay soo degaan Yemen laakiin Xuutiyiinta oo watay diyaarad laga leeyahay Iran ayaa waxa ay u soo kictameen dhinaca iyo Yemen iyagoo wax cabsi ay ka muuqanin maanta xaaladu meel adag ayay gaartay dawladda ay taageerto Sacuudiga ee fadhigeedu yahay Cadan ayaa u diiday Xuutiga hawadaas Yemen inay soo galaan laakiin Xuutiyiinta diyaaradoodii waxa ay soo aaday Yemen waa la garaacay muuqaalka idin muuqdo waa qaraxyo iyo weerar lagu beegsaday airportka weyn ee magaalada Sanca dalka Yemen deegaanada Xuutiga ay maamulaan Xuutiyiinta taa kama baajinin in duulimaadkoodu ay sii wataan laakiin waxay dhalisay tallaabadani caraweyn oo ay Xuutiga u qaadaan Sacuudiga waxayna sheegeen in dagaal furan ay hadda galayaan oo ay la dagaalamayaan dawladda Sacuudiga iyo dawladda ay taageeraan ee fadhigeedu yahay Cadan haysadan waa xiisadii ugu adkayd sanadyo xabad joojin dhex martay Sacuudiga iyo Xuutiga oo xilligaasi dagaalka inta uu socday waxa weerar lagu soo qaaday Yemen iyadoo Sacuudiga uu garab siinayeen dawlado badan oo Carabeed oo ay kamid tahay Imaaraadka iyo kuwa kale maanta waxa ay jabiyeen isku daygii dawladda Yemen ee fadhigeedu yahay Cadan ay isku dayday inay Xuutiga sortaagaan lama garanayo dagaalkan inuu sii socon doono laakiin Xuutiga waxay ku dhawaaqeen waxa loogu yaray ka jawaabis dagaal lagu soo qaaday dhulkooda hawadooda cirkooda badooda waayahay qodobka xiga balan eegna isagana oo arrinkan ayaan wali ku guda jirnaa ugu dambeyn wafdigii Xuutiga waxay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Xudayda oo ku taala galbeedka Yemen kadib markii la isku dayay in la hor istaago inay hawada soo galaan waxay Xuutiga ku guuleystay diyaaradii waday in ay soo galaan Yemen hawadeeda oo Sacuudiga iyo dawladda Cadan waa ay awoodi waayeen in Xuutiga ay hor istaagaan iyo diyaaradii Iran laakiin airportkii magaalada Sanca ayay soo degi waayeen Xuutiga duqeyn ayaa roob looga dhigay taa markay dhacday diyaaradii ma noqonin Xuutiga go'aankoodii ayay qaateen Iranna way ku garab siisay waxay ku degeen magaalada Xudayda galbeedka dalka Yemen intaa wixii ka dambeeyay go'aankii ugu dambeeyay ayay soo saareen dawladda Xuutiyiinta ee fadhigoodu yahay magaalada Sanca ee dalka Yemen wasiirka difaaca Xuutiga ayaa caawa afka furtay waxa uu sheegay in la soo weeraray dhulkooda in la soo weeraray hawadooda in la duqeeyay waxa uu sheegay in Xuutiga dulqaadka uu ka dhamaaday dadka reer Yemen waxa uu sheegay inay difaaci doonaan hawadooda dhulkooda cirkooda iyo badooda waxa uu sheegay in ay qiimaha ama price ay ka bixin doonaan ama ay ka jawaabi doonaan xanuun badan ay arki doonaan Sacuudiga oo markaa uu ku eedeeyay in ay jawiyeen xabad joojintii waxa burburtay buu leeyahay xabad joojin walba oo aan Sacuudiga la galnay waa kana wasiirka difaaca dalka Yemen dhanka Xuutiga arinta ka hadlaya bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah محمد بن عبد الله الصادق الأمين قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم
بيان القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام. لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الانقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة وإنت أيان كسو قادننا وزيرك دفاع دلك يمن قارهان حوتيغا oo sheegay in aysan ahayn markii ugu horeysay oo lagu soo xadgudbo. waxa uu sheegay in ay markaan kadib dulqaadkii ka dhamaaday oo ay ka bixin doonaan jawaab munaasab ku ah. waxay hadda u muuqataa dagaalkii in uu baahay Sacuudigana la geliyay dagaal uusan diyaar u ahayn. lama yaqaan dagaalkan cidda ku qasabtay Sacuudiga inay galaan. Xuutiga waxay leeyihiin waxaan garaaci doonaa Sacuudiga. xaaladdu way adag tahay. reer Sacuud dagaal bay galeen, Xuutigana jawaab bay bixinayaan. laakiin caawa mar kale cabsida ugu weyn ee dunidu ay wajahayso waa in ay jirto suurtagalnimo in mar kale baabul mandab la xiro iyadoo Hormuus ay xiran tahay. dhaqaalaha adduunka afka ayuu dhulka la galayaa. caalamka ciriiri badan ayaa badeecooyinkii iyo isu gooshka maraakiibtii xeebaha ay wajahayaan. waayahay walaalaha qiimiga lahu qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena caawa waxaynu ku soo xiraynaa qiimaha shidaalka caalamka ayaa kor u kacay kadib dagaalada ka soo cusboonaaday bariga dhexe. qiimaha shidaalka